boqol iyo 20 cisho aan soo dhaafnay diyaaradaha Kenya waxay duqeynayeen geedweyne shaatolow bergini baarka dhuumow bohol salbay sariiro gabangable saalow iyo buraabes iyo carracaso macnaheedu waxay tahay waa inay luuq duleedadeeda iyo deegaamada xeer koobaad baar dheer duleedadeeda iyo sariinley ay duqeeyaan midda beddelkeeda khawaarijta al-shabaab iyo ururada argagixisada magacyada iyo midabada badan Daesh al-shabaab al-maxaakim al-ittixaad al-najis oo dhan degmada badhaadho 720 kiiloomitir u jirto gobolka NFD kana tirsan gobolka Jubbada Hoose mucaskarkii Xasan Turki 93 uu ka furay al-ittixaad al-raskamboni al-nijaaso al-shabaab al-khawaarij oo dhan ay ku idishay weligeed Kenya ma duqeyn baafin Soomaaliyeed ee gobolka Gado wuxuu baafinayaa siyaasiyiintii nimanka hadda xukunka haya u dhigmo awal waxaan islahayn waxay ka xishoonayaan qabyaalada Soomaaliya وانا ku qanacsanayno inay qabyaalad ka dhowrsadaan waa rabna maxamed cabdullaahi farmaajo saacid faarax garaad cabdiwali qaali axmed cabdiwaxid cilmi goonjeex iyo ragga kale la midka ah bismillaah wa salaamaya ummadda Soomaaliyeed guud ahaan dibadda iyo daaqilba gaar ahaan waxaan salaamayaa baahda saxaafadda dadka magacyo loo kala guraa geel jiro dilay ayaga isku gooba la yiri bixiyaha gari markii gudaha la isaga diray buuganay shushayo iyo dabadeed wata gees walba gooni loo cunay aan doonaya ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago dibad iyo daaqilba 18 bishii 2023 heshiis qarsoodi ah oo dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya ay galeen inaan halkan ka faahfaahiyo waxyaabaha ay dhali karto iyo ujeedooyinkana aan daba dhigo 18 bisha October 2023 wasiirka gaashaandhigga Kenya iyo taliyayaasha ciidamada oo wata wasiirka kale iyo wasiirada Soomaaliya iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay kala saxiixdeen heshiis qarsoodi ah heshiiskaas oo macnihiisu yahay kii 2009 gobolada Jubbooyinka Kenya lagu siiyay ama looga gatay hadba sida loo yaqaano heshiiskaas wuxuu si gaar ah u taabanayaa gobolka Gado ujeedaduna waxay tahay wabiga Jubba malkaariyay iyo meesha la yiraahdo haqa qabliya dhakaajiya cali ooyow inta gobolka Gado kaga beegan ilaa xuduudda NFD in bafarsom laga dhigo waxay ummadda Soomaaliyeed wada ogtahay muddo dhowr iyo 10 sano ah jidka ka baxa degmada Balad Xaawo ee aada degmada Baar Dheere wixii galbeedka ka xiga inay Kenya duqeynaysay waxaa jira in ka badan 179 magaalo oo gobolka Gado ku taalo oo ay xagga Balad Xaawo gadoon dhawiye qadiijo xaaji u jiraan xagga Garbahareyna Buraa iyo Xirsigiir u jiraan xagga Baar Dheerana ay Taraka iyo Jungal iyo Qayshamal ay u jiraan baa laga guura oo cid degan oo caawa ku hooyata aysan jirin 120 cisho aan soo dhaafnay diyaaradaha Kenya waxay duqeynayeen geedweyne shaatolow bergini baarka dhuumow bohol salbay sariiro gabangable saalow iyo buraabes iyo carracaso macnaheedu waxay tahay waa inay luuq duleedadeeda iyo deegaamada xeer koobaad baar dheer duleedadeeda iyo sariinley ay duqeeyaan midda beddelkeeda khawaarijta al-shabaab iyo ururada argagixisada magacyada iyo midabada badan Daesh al-shabaab al-maxaakim al-ittixaad al-najis oo dhan degmada badhaadho 720 kiiloomitir u jirto gobolka NFD kana tirsan gobolka Jubbada Hoose mucaskarkii Xasan Turki 93 uu ka furay al-ittixaad al-raskamboni al-nijaaso al-shabaab al-khawaarij oo dhan ay ku idishay weligeed Kenya ma duqeyn ummadda Soomaaliyeed ee qorta degmada afmado aadan barre ducaale iyo Yuusuf Xaaji wasiirka hore gaashaandhigga iyo wiilkiisa ee hadda taliyaha nabad sugidda Kenya iyo Xamse Cabdi Barro ra'iisul wasaaraha cidoodu ay degan tahay xagar waxay u jirtaa 40 kiiloomitir waligeed diyaaradaha Kenya ma duqeynin wayahay waxa kale oo rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago waa sanad guuradii 12aad
ciidamada Kenya ay xasuuq ka wadaan gobolada Jubbooyinka si gaar ah gobolka Gado 16 Oktoobar 2011 bay soo galeen wali diyaarad Kenya ay leedahay iyo madfac Kenya ay tuurtay hal nin oo khawaarijta al-shabaab ee arxanka darana dishay duugaanka kuma qorno ama dad shacab ay dishaa ama dunyo mood iyo nool ay dishaa deegaamada nimanka haybka ah waxaan maqli jiraa maamaha Soomaalidu ay tiraahdo maskax guumaysi ku kortay iyo mayd bini aadanba ma danqaan deegaamada nimanka ayaga ee la guumaysan jiray ay degan yihiin jamhuuriyadda ay ka degan yihiin gobolka Jubbada Hoose degmada Afiyado madow iyo dhinacyadeedana waligeed inaan la duqeyn baan idin sheega baafin gobolka Gado wuxuu baafinayaa siyaasiyiintii nimanka hadda xukunka haya u dhigmo awal waxaan islahayn waxay ka xishoonayaan qabyaalada Soomaaliya waana ku qanacsanayno inay qabyaalad ka dhowrsadaan waa rabna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Saacid Faarax Garaad Cabdiwali Qaali Axmed Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex iyo ragga kale la midka ah oo wasiirada gaashaandhigga iyo saraakiisha sarsare iyo soo maray gobolka Gado uu baafinayaa haddii William Ruto masiixi ah oo wakiil ka yahay Aadan Barre Ducaale gobolkiina Buffersom laga dhigayo meelan ganacsina tagin hay'aduna tagin laga dhigayo waxa aad la dhuumareysaan gobolku waa in dhaliilo waa idin baafinayaa waa dalkii dadkii iyo diintii dawlad dal hore haysatay oo masiixa iyo dad hore baana duulaan ku ah baafintaasna waa idinka gudbiya reer Gado inta ogaada waa idinka gudubtay erayga ugu dambeeyo ummadda Soomaaliyeed waxaan doonayaa inaan u sheego 4 bilood oo u dambeysay degmooyinka Doolow balad Xaawo iyo Ceelwaaq dadka ku hoydo 40% ilaa 35 waa ajnabi ma jiro qof Soomaali oo shaqo hoos qaban kara haday tahay dhismo guri haday tahay dhardhaqid haday tahay xamaal haday tahay makhaayad shidashadeed waxa al-yoomka la yiraahdo Oromo iyo Kenyan Sawaaxil oo Kukuya iyo Jalwo iyo Masay dhagaha jeexjeexan ba ka shaqeynayo dhamaanna waa sirdoon dawladeed waana siyaabaha dhulka lagu qabsado markii sida la doonayo annaga nala barakiciyo in dhulka lagu qabsado la rabo weeyo waxaan erayga ugu dambeeya leeyahay odayaashii dhaqanka ee dadkan dhaqanka u ahaa oo qeyrkiin laascaanood ka garta iyo fagaaraha goob kasta joogtaan soo istaaga hadduu aliina la yahay taariikh xumo iyo inay idinku dhicina soo istaaga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh